adeerow annagii labaatan ka jirnay baa laba u bareeri la sida ay ugu sheekeynaysa afar baan hayaa aqli gal maaha dib isu dhigo adigii riifan iyo lisan kugu dhacay baa la moodaa waa qalashay caata tahay waa duubatay midda kale u sheeg inuu dal muursha uu yahay nin wiilasha dhalinyarta Soomaaliyeed xaasaska leh raal maad aysan u ahayn oo odaygaas u noqon raal hal xaasle waa nin sharaf la weey dal muursha waa aragteen sida quruxda joog iyo jamaalka wajigiisa laga subkan karaa ninkan afarta xaasir waa qabaan bal eega gabdhaha maxaa ku dhacay iyaga maxaa ku dhacay annagii ragga ahayn baa yaaban maxaa ku dhacay abaayay adoo habeen kasta mid ku babiya heli karaya maxaa saddex qad ka dhigay waa in la sheer gareeyaa u sheego dadka dhan loo sheegaa lagu wacyi galiyaa gabdhaha kan waa mid habaar qaba ah oo meel daran laga soo hindhisay ma iga deyso dadkii oo dhan ku kacay oo maagaye ani ma iga deyso hadalkiisa ma iga deyso miska daayaan iga hadalkiisa ma deynaysa see u deysaa ninkaaneeto afarta xaas guursada ka hadal dhaqso mar kale waa hadashaaye waayahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa salaamaya sida la socotaan waxa soo baxay nin aanan anagu garanayn meel uu ka yimi baa soo baxay ninkaas afar xaas baan qabaa buu yiri afartiisa ma aha isagii baa dhamaadayba dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego afar xaas waxa in la guursado ma fiicna diintu waa ogoshahay laakiin shuruudo badan ku xiran ninku markuu waramayay shuruudihii nin buuxiyay uma ekayn annagu waxaan leenahay ninkaasi raggii Soomaaliyeed film u keenay gabdhihii baa awal yaabana raggii yaabay annaga yaabnay soo okay ma marka maya okay maxay tahay ninka afarta xaas guursada adduunka dhan lagu ifiyay ma jirto waxaas waa inaad ka hadashid oo u sheegtid dadka dhan dhaqso ku soco marka ninka waa cambaaraynayna haddaan ragga Soomaaliyeed nahay waxaan hal xaslayaasha haddaan nahay waa cambaaraynayna waxaan ugu cambaaraynayna sida ugu kulbaan u cambaaraynayna waxaan leenahay war hadii adiga shaydaan ku fidmeeyay ma guriga ku qarsato maxaa anaga noola hormarmaraysa ummadiiba isku dirtay dadkiiba isku kicisay waxa weeye rag badan oo xataa tii labaad ula baaca uu ku tubayay ba geed quraayada ku jaftay dumarkii oo dhan ba tooshka soo shitay maxaa adiga hadiiba ilaahay duulakan haduu ilaahay ku sakhiray ma iska waxaaga ma hursato maxaa anaga idaacadaha nooga imanaysa oo tooshka noogu ifinaysa maxaa ku daa muxuu yahay shaydaan ku qaatay muxuu yahay ninkaas anu lababa yaabaniba gabdhaha iyaga wax dhahaya jaf gabdhaha naftirkooda waa wax bilaa damiiro dhiig ilaahay ka qaaday maxay tahay afar naagood hal nin wada guursatay waxa anaga wadan lagu furayaa dhaqso jaf dadka waxa weeye gabdhaha maxaa ku dhacay iyaga maxaa ku dhacay annagii ragga ahayn baa yaaban maxaa ku dhacay abaayay adoo habeen kasta mid ku babiya heli karaya maxaa saddex qad ka dhigay maxaa mustacila ku huuriyay ilaa ninkan isagu habeen cilla saxan miye adiga maxaa cilla ku dhigay adiga waaba in la yaabay seewxinka ummadii oo dhan in la yaaban dumarkii yaaban annagoo raggiya qaati taagan maxaa idinka in helay babi habeen kasta heli kartaa maxay tahay waxaasi waxa weeye hadiiba laakiin ilaahayba idinka saa sheegaysaan nimco isku haysataan maxaa annaga sanka nooga marmarinaysaan ma wixin asturataan waa idinku duceen lahayn ilaahay sukin barkaya idin leenahay ma wixin haysataan ragga Soomaaliyeed waxa u sheegayaa oo ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa ninkaas wareysigiisa waa soo daawaday meeshuu leeyahay ninkii 7 xaas baa ku soo aadaya waxba kama jiraan 7 gabdhood baa ninka ku soo aada waxba kuma jiraan dawladda Soomaaliyeed baa la hadalnay arinta waa weydiinay waa beenisay dawladda Soomaaliyeed waxay tiri ragga iyo dumarka Soomaaliyeed tira ahaan marka la isu eego waa isla eg yihiin ninkii hal xaas ku soo aadi kara ninka marka waxa weeye haduu afar xaas qaatay rag kale dumarkiisa ku maqan waxaanu xaq lahayn buu qaatay waa boobay waxa weeye marka waxaan leenahay maandhow odayow raggii Soomaaliyeed 20 jiradii baa doobab ah oo meel walba taagan ma fahantay Soomaalida maanta 30 jirka inta badan lagu guursadaa marka hadii ilaahay adiga ku jabiyay duul khayr qaba ilaahay haduu ku jabiyay ina waxa qarsatay ahayd sooma dhamayn saa dhamayso ninkan runta u sheeg iyo naagahaba u sheeg ma adan dhamayn ku socod misaada baqaashki
waxay marka waxaan rabaa inaan maaragtay ninka warniyo maxaa dhibtaana gelisay lugooyadaana gelisay kadeedka noo geystay adiga eeg ma is eeg adiga waxa ahayd nimcada ahaysay inaan aamusina ku jaqday ahayd maxaa idaacada ula timi safaraha Soomaaliya ugu soconay hadda waxa islaahay meelaha waxa weeye iska soo abaabul ba islaahay dhibaatada noo geystay waa u jeedaa kadeedka noo geystay waa u jeedaa marka waxaan ku leeyahay adaan kula hadlaya ninkan Shamsuddin iyo magaca lagu sheegay adaan kula hadlaya afar layne tartiib u soco halka waxa weeye xaaladaadu brankin ahayd ba umaleynaya soo hadal bari si kasta ha ahaatee bari waa inaad tiraahdo arrintu brank bay ahayd ummadii Soomaaliyeed oo dhan madaxa iskula jirtaa maanta waa la wada yaabayahay rag iyo dumar guri aan laga qaylileen male midaas waxaan ka taagnayn male maxaa yeelay raggii dumarkii furin aan khayr qabin baa ku furtay ma fahantay marka waxaan ku leenahay adeerow annagii 20 ka jirnay baa laba u bareeri la sidee igu sheekeynaysa afar baan hayaa aqli gal maaha dib isu dhigo adigii river iyo listen ku dhacay baa la moodaa waa qalashay caata tahay waa dhuubatay ma afar xaas waa nin Shiina iyo Ruush iyo Mareykan iyo Ingiriis ku dhex jira ka dhigan tahay midiiba rag waxa weeye qaatil la jooga ma fahantay waxa weeye hatta diinta waxa ilaahay dina ka been sheegaysa ilaahay diintu waxa qabtaa afar waa qabtaa laakiin ninka awoodi kara adna waxa leedahay ninku haduu sabool yahay hatta risaaqad buu helayaa hay iska guursadaa leedahay waxa xagee ku qoran tahay xagee waxa laga helaa waxa weeye qofka awoodda leh ba afar loo ogol yahay saddex loo ogol yahay laba loo ogol yahay laakiin sabanka maanta lagu jiro oo Soomaali burburka gashay oo gabdhihii mid aan lahayn karin oo maxaan ku dhahdaa dadkii 20 jirka bidaarta ku galayso ma adeer ina waxa gasho ma ahayn ma fahantay gabdhahaana waxaan leenahay wareede gabdhow sida isu dhaama hadaa ninka ku qanacsan tihiin anoo hadda furo inu oran meeno warqada kala qaata inu oran meeno shaydaa inu ku noqon meeno laakiinse naga fariista waxa kana idaacadaha la soo fariisanaysaan oo faanka ah oo igu sawirta ah naga joojiya tacabaan galsan haye waa dhamayso ma intaas ani iga daadee inta ka badan ma oran kare maxaa adiga naga taadiga de ma dhaha ma wada dhageysta waa maqlaysaan ragga Soomaaliyeed hadda waxaan idinka digayaa ninkaasi macna karbaashka kuwa maxaa dhacay soo istaajinaysa nimanka Soomaaliyeedna waxa uu sheegtay inuu hal xaas uu ka fiican yahay ninka afarta xaas wata midda kale uu sheeg inuu dal muursha uu yahay nin wiilasha dhalinyarta Soomaaliyeed xaasas kale raal maadal aysan u ahayn oo odaygaas u noqon raal maadal u sheeg oo ku wacyi gali waa u jeedaan dayaxdan nuurshe waa aragteen ninka halka xaasku sharaf la weeye hal xaas la waa nin sharaf la weeye dayaxdan nuurshe waa aragteen sida quruxda jooga iyo jamaalka wajigiisa laga subkan karaa ninkan afarta xaas yiri waa qabaana bal isu eega habeen iyo maalin bay isu yihiin ninkana waa aragtaa saas uu dhuubtay ragga Soomaaliyeed waxa leeyahay ninkii afar xaas ku talagala waa nin afar jahannamo ku talagalay weeye waa nin subaac ku talagalay waa nin afar abeeso guriga soo dhigtay waa nin adduunyada isagoo jooga kibriil caga iska qabtay waa nin iskadeeday waa nin adduunyadii uu ku raaxaysan lahaa dhibaato lagu ku doontay marka dayaxdan nuursha role model ha idin noqdo maxaa waayeysaan maxaa halka xaas ka weydeen ii sheega aniga maxaa laga waayay okay halka xaas maxaa laga waayay dayaxdan nuursha waa aragteen waa nuuraya waa sharaf buu leeyahay karaamu leeyahay xaaskiisa waa aragteen barwaaqo ku jira barwaaqada dayaxdan nuursha ka maqan oo ninkan odayga ah ayaa maxay tahay iniga ii sheega ma jiddo marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed waxaan ku bogaadinayaa oo ragga Soomaaliyeed khaasatan ku boorinayaa dayaxdan nuursha hadii ilaahay idinka ka dhigo role model ha idin noqdo anigu dayax wadada u qaaday baan qaaday wadada odayga qaaday ma rabo shaydaan baa la mara taanu kuma jiro idinkana saasaan idinku bogaadinayaa
wadadaasi inoo balana ninkaas cidii iyadoo rabta adduunyada inay joogto inay isku kaleedo oo kibrid caga iska qabato oo isgubto oo gacanteeda maxaa ku raadayay isku toogato ha ku dayato laakiin waa idin digaya haddaba waa idin digaya wadadaas sharafta leh deexdal nuushe karaamada leh oo uu qaaday oo ma sha Allah wadada qaada aniguna insha Allah isagaan ku dayanaya marka taasa idinka digaya waxaan leeyahay wadaadkaas wardhafoor buu ku yaaraa wajigiisa eega tacabka ninka iyo hawsha iyo daalka iyo dayac ka muuqda maxaa ku nool waa nin qaxooti ah weeye guriga kan ka bax oo kan deg oo kan gal oo kan aad waa qaxooti kama duwana ma fahanteen nin Faransiiska iska dhiibay oo habeen dambe Germany iska dhiibay oo habeenka ku xigtay Sweden loola cararayo oo habeenka afraad Norway laga sugayo baadar socod buu u dhimanaya dadka Soomaaliyeed marka waxaan leenahay khaasatan dhalinyarada ninkaasi uu maskaxda ka waalayo ninkii waxaysta labaha gursho kii aan waxaysano xabadaada iimaaso saasaan anagu inuu ku talneena buuq ma jiro waa dhantahay Soomaa way dhantahay oo in la sheer gareeyaa u sheego dadka dhan loo sheegaa oo lagu wacyi galiyaa gabdhaha gabdho waa maqlaysaan sheer gareeya waxa weeye waa arrin muhiim ah weeye oo qiimo leh waxa weeye arrintaas waa ina si fiican uga digtoonaataan xaaladdu waxa weeye ninka odayga ayuu idin fidmayn ragow idin fidmayn gabdhahaasna waxaan leenahay walaalayaalow idinku haddii maxaa ku raadayay calafku idinka xumaaday oo waxaan ku raadayay idinka halka idin galiyay oo afartiinaba ninka ku qanacdeen oo waxa weeye oo isla keen qabo khayr Allah idinka siiyo ilaahay ha idin barakeeyo waa idin duceeyay laakiin gabdhaha Soomaaliyeed ka daaya qiimo jabka ka daaya nacala sida ku yaal gabdhaha Soomaaliyeed qiimo jabka ka daaya idinkana leenahay saasi xaq ma aha ka daaya gabdhaha Soomaaliyeed ba idin leenahay marka videoga la sii share gareeyo janaalka subscribe hala saaro like comment la soo badiyo waa musharax shir ku reebay shiina culo idile soo ma salaam soo madhaho واي هاي خير الله يديسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته